bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan warbaahinta qaranka iyadoona ay idinkaga imaato barnaamijkan fanka iyo suugaanta xarunta dhexe uu ku leeyahay telefishinka qaranka ee muqdisho. toddobaadkan waxaa marti ku ah barnaamijka cabdiqaadir maxamed aadan aargute oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed inagoona toddobaadkan ay ka duwan tahay toddobaadyadii hore sida aad uga fiirsan jirteen warbaahinta qaranka. guwaabada fanaaniinta iyo ciidanka sidoo kale fanaaniinta guwaabada ay ciidanka u sameeyaan bulshada Soomaaliyeed dhammaan hees wadani ayaynu ku qaadan doonaa haduu ay baraali ka noqdo inagoona marba dhinac inagoo ay shaq ciidamada xooga wacyi gelinayno abaalkoodana aan la gudi karin heesa looga tiriyay dhamaantood aan barnaamijka ku soo qaadan doono haduu ay baraali ka noqdo sidoo kale tan bulshada naftirkeeda iyaduna ay la hadleeno oo aargute oo ah maanta martida barnaamijka oo wax badan inooga faa'iideen doono haduu ay baraali ka noqdo barnaamijka ayaan idinku soo dhaweenayaa inta aan u guda galin barnaamijka waxaan soo dhaweenayaa cabdiqaadir maxamed aadan oo ah martida barnaamijka. cabdiqaadir ku soo dhaw barnaamijka. waa mahadsan tahay waan dhawahay beelaha kariim waxa ilaahay oo na baray aan islaanahay maanta waad sheegi doontaan ayaan jecelnahay inaan bulshadeena iyo ciidamadeena iyo maartay intii wadaniyada ay ku dhaxanto oo dhan Soomaalinimada aan la wadaagno haduu ay baraali ka noqdo daawadayaal sida aan hore idinku sheegay barnaamijkeenu waxaynu ugu talagalnay guwaabada fanaaniinta ee u jeedinayaan ciidanka Soomaaliyeed guud ahaan hadii ahaan leed ciidanka xooga booliska sidoo kale ciidanka asluubta dhammaan balse aargute oo kamid ah maanta martida barnaamijka toddobaadkan waxa uu heesab dhowr ah uu qaaday ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ku amaanayo qaarkoodna uu ku dhiirigelinayo qaarkoodna uu kula dardaarmayo in bulshada si wanaagsan oo la macaamilaan sidoo kale kama maqna heesa wadani kale oo loo qaaday mas'uuliyiinta dawladda ama mudanayaal ka tirsan siyaasiyiinta iyaguna sidoo kale waxa kamid ah Muqdisho ah caasimadii Soomaaliya in asna uu hees u tiriyay dhamaan Muqdishona loogu duceeyay dhamaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaa ama aad ku daawan doontaa haduu ay baraali ka noqdo balse heesta ugu horeysa ee aniga aan ka codsan lahay cabdiqaadir maxamed aadan oo ah fanaanka maanta martida ah ayaa waxay tahay heesta ugu horeysa oo barnaamijkeena ku furanay ay tahay waa heesta daljir erey waxa ku jirto diintii oo dalkayga dadkaygan u dhaarto oo kitaabaan u maray duulaanka cadowgan u xiranahay dariiska daa'imo allahayo adna igu daryeelo diiwaanka ii gali sidoo kale waxa ku jirtay erey kale to iyadana duufaanta socdiyo daadku ima dilaasho ma dareema dhaxanto dabku ima karaayo difaac xoog labaan ahay hubka deegta ii suran ku dagaalgalkiisa kuma dila dadkaygo nacabkan ku didiyaa waa tahay heesaas ereyadeeda waxa iskala cabdi faarax gareen laxankana waxa iskala jinni shumay muusigana waxa tumay ustaad Sumxaaye dhamaantood kuma weydiinay heestas in bal aan ugu daafurta anaga iyo dhamaan internet daawanayso intii wadani naftii hore damirlo aad ku duursotaaniyo waxaan haydal jiray deer aan dumayniyo darbi adag ayaan ahay dii halka gaajiyo oon ku imaadan qaayo kuma diida milicdo jirku imaad dubaaxshi horse daalin baan ahay naftii hore damirlo aad ku diirsataaniyo waxaan ahay daljiri deer aan dumayniyo darbi adag ayaan ahay dii halka
gaajiyo oon ku imaadam qaayo kuma diido milicdu dirku imaad dubaxshi horse daalin baan ahay howsha aan u diiraanahay daacad gudashadeedana dallaaxaad ha joogte cidna deeq ugama rabo sharaf baan dugsanayaa howsha aan u diiraanahay daacad gudashadeedana dallaaxaad ha joogte cidna deeq ugama rabo sharaf baan dugsanayaa diintiyo dalkaygiyo dadkaygaanu dhaarto duulaanka cadowgan u xirnahay dirayskii daa'imow allahaayo adna igu daryeelo diiwaanka ii geli diintiyo dalkaygiyo dadkaygaanu dhaarto duulaanka cadowgan u xirnahay dirayskii daa'imow allahaayo adna igu daryeelo diiwaanka ii geli ضميرلو آدكو دوك ستانيو وحانا خيد الجيري إليس آن دمينيو دانا بيرا أيانا خي توفان تسعوتيو دادكو إما دلانشو مداري مدحانتو ku ima karaye difaaxu labana hay nafti hore damirlo aad ku dugsataaniyo waxaana haydal jiri ilays aan damayniyo dana bira ayaana hay socodtiyo daadku ima dilaansho madaari madaxantu dabku ima karaaye difaaxu labana hay hubka degta isuran ku dagaalgal kisanad kuma dilo dadkaygu marna boob uguma dayo نعبكان كديديا وبكا دكتا إسولان كداقل كيسانا كما ديلو داد كايغو مرنا بوب وقوما دايو نعبكان كديديا انتيو دالكايغيو dadkaygaanu dhaarto duulaanka cadowgan u xirnahay dirayskii daa'imow allahaayo adna igu daryeelo diiwaanka ii geli diintiyo dalkaygiyo dadkaygaanu dhaarto duulaanka cadowgan وحرنا هايدي ريزكي دائمو اللهايو أنا إيغو داريلو ديوان كايقلي دينتي
dalkaygiyo dadkaygaanu dhaarto ciidanka inta sadan daawo right waxaan noo dardaarana dulaal iyo malaal iyo daba dhilif danka ma lihin dib socodna kaba daran ee dawlad baana deeqdee doorka aan ku leenahay waa inaan dadaalno nabad soo dabaalna waa tahay waa la hadlay waa la sii hadli doona haduu eebaydmo insha Allah heesti kuugu horeyso oo wadani aad qaado ma xasuustaa heesti iigu horeysay ee wadaniga aan qaado waxa la yiraahdaa dhisma qaran si wanaagsan dhisma qaran hadii aan su'aal ka weydiiyo waxa ku jirta aabo waxa leedahay aabaheena wuxuu dhaxal noogaga tagay markuu dhintay aabahen wuxuu dhaxal noogaga tagay dhulkan iyo geedaha iyo wabiyada iyo labada wabiye ee badda dhex marto iyo baddeena dhumucda weyn baddeeda inta soo in dhax taal maxaa dhoofkiina baday qaxootiga dhan iyo qaxootiga heestaas aabaha yuu ahaa horta waxa marka la sameeyo waa inaad ulajeedo ay leedahay si wanaagsan Soomaalidu ma konton aabay leedahay waa maya hal aabay leedahay ma nihin annaga qowmiyado isku yimaadeen si wanaagsan annaga qoysaba qowmiyada hadda federaalan la yiraahdaa federaal waxa noqon kara Ethiopia iyo Kenya iyo kale si wanaagsan hadda isku yimid laakiin annaga isku baanan iman Soomaalidu hal oday bay leedahay ilmana aaba markuu leeyahay ay islaamo badan oo odaygu qabo baha badan way Soomaa si wanaagsan hadii odayga dhinto maxay isku qabsadaan dhaxalkii reerkii wixii reerku dadka dhaxalkii uu naga badan yahay aan sheegaynaa dawlad goboleedyada naftirkooda ay qabanaysaaba way naga badan yahay marka waa in aan fiirin bahiblaayo saasay samaysaa aabahan naga wada dhaxeeyo Soomaali baynu nahay isku diina isku dada isku afa oday Soomaaliyeed baan soo qaadanay markuu dhintay aabahen wuxuu dhaxal nooga tagay xoolaha aan dhoofsaniyo dhulkiyo geedaha ku yaal labada wabiye dhaxmara waa Jubiya Shabeelle Soomaa si wanaagsan baddeena dhumucda weyn inta soo in dhax taal maxaa dhoofkiina baday qaxootigan aan dhamaan qaxootiga aan dhamaanin waxaad ogaanaysaa marka siis dhuuxdaysta qabyaalada inay tahay wax dhanba wax dhan la dirnaa ay tahay dibkaas waxa noogu wacana ku jirtay marka sax dibkaas waxa noogu wacan diinto laga tagay iyo adigu saas maartay qabiilko lagu dhaartiyo diinto lagu dhaadanay ee dhamaan Soomaaliyeed inta dhuuxdaan murtida dhan uun isku raaca oo dhismaha qaran soo cishada ismaheena qaran soo cishada waa tahay markan hees kaleeto oo ayadana waxa jirto mudana la lahaay hees mudana maxay ka hadlaysaa iyada mudane horta markii aan Kenya ka soo tagay 2013 bishii labaad muddo hadda 5 sano ku dhawaan magaalada Muqdisho jooga markii aan ka soo tagay Kenya ayaa abwaan saaxiibanahay oo qadka aan isku baranay ayaan hurfo guuta la yiraahdo Sweden inuu joogan filaya aan isla sheekaysanay waxaan ku leeyahay Soomaaliya u socdaa Muqdisho u socdaa carruur ay jirto dalbkii weeyaan waarida jiro waxyaabo badan marka waxaan rabaa hees dalka iyo dadka iyo madaxda iyo adiga madax iyo majaal yahay dadka Soomaa meesha madax iyo majiibo waa inta ugu hooseysay qaar kaaga kore inta mid la hadlayso walaalo bal noo ii samee si wanaagsan marka heestaasi mudana aan baxsaday aniga waxay leeyahay maqal Soomaaliyay isma qalba aadanuhu dhibka uga horumara wanaaga ku mahdiya miyaydan dareen lahayn ogow nabad baa macaan masiibadu waa colaad balaayadu waa mugdiye dadkaygu maanka gali maamuus law calanka yagu dawlad maamusho raba ogow qaran waa muhiim muwaadinka oo horsado madaxda u jeesanaysa hadaa dalka madax ka tahay xilkiisa kitaab u maray mas'uul daacada ahaw bulshadan u midiidi noqo mudana sharciga xurmee dhashaadana magac u reeb aadiya wixii ka dambeeyay magac u reeb qalin haba noqoto ama ilmaha dhashaa noqdaan hadaad xumaan samaysid carruurtaad odayga xumaa ilmihiisa la leeyahay hadaad xumaan samaysid alla boqorkiya dalkaas wanaagsanaayo islaamka ahaayo mu'minka ahaayo magacaad ka tagtay si wanaagsan sidaas waa marka waa dhaxal u reeb wax wanaagsan ka tago marka maalintaas aan ka soo tagay Nairobi ilaa up to now intaas Muqdisho aan joogay laakiin waxaan ay noqotay waqtiga maantadan inaan samayno oo ay soo baxdo marka waxa igu celisay abwaanka qaaday abwaanku waa dhifeerayada waxa la yiraahdaa hurfo guutaale laxankana hiya ku saaran aniga saaray laxanka
يا موسيقى ذنا موسيقى واحد تمي أبو كريرة ها عدكنا عبد القادر وهذا مركنا هيستس هذه الدعوة يا شاي ذين كجد حبه Somali isma qalba adna hudib kawga horumara wanakum mahdiya miyaydan darin lahayn maqal Somali isma qalba adna hudib kawga horumara wanakum mahdiya miyaydan darin lahayn ogow nabad baa macaan musiibadu waa colaan balaayadu waa mugde dadkaygow man ka gelin ogow nabad baa macaan musiibadu waa colaan balaayadu waa mugde dadkaygow man ka gelin maamuslow calankayagu dowlad maamushuu rabaa ogow qaran waa muhiim muwaadinka u harsado maamuslow calankayagu dowlad maamushuu rabaa ogow qaran waa muhiim muwaadinka u harsado haddaad dalka madax ka tahay xilkiisa kitaabu maray mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mudane sharciga xurmiye bashaadana magac reeb mudane sharciga xurmiye bashaadana magac reeb haddaad dalka madax ka tahay xilkiisa kitaabu maray mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mudane sharciga xurmiye bashaadana magac reeb mudane sharciga xurmiye bashaadana magac reeb beerteenuna waa miro maydinka xababta ku taal miyay idiin muuqanay maqal ciidenu waa macdana waa badeenuna waa malaay beerteenuna waa miro maydinka xababta ku taal miyay idiin muuqanayn maalkeena dihan xoogaaga maciisa midnima umad yeelato Soomaalay macaashtan noqo ogow maalkeena dihan xoogaaga maciisa midnima umad yeelato Soomaalay macaashtan noqo mas-uulow calankayagu dowlad maamushuu rabaa
ogow qaran waa muhiim muwaadinka u harsado muwaadinka u harsado maamuslow calanka iyagu dowlad maamushu rabaa ogow qaran waa muhiim muwaadinka u harsado muwaadinka u harsado haddaad dadka madax ka tahay xilkiisa kitaabu maray mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mudana 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 sharciga xurmeey lashaadana magac xureeb mudana sharciga xurmeey lashaadana magac xureeb haddaad dadka madax ka tahay xilkiisa kitaabu maray mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mas-uul daacada ahaw bulshadan umididi noqo mudana 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 sharciga xurmeey lashaadana magac xureeb mudana sharciga xurmeey lashaadana magac xureeb macaashato noqo oo dad faa'iido noqo right waata heestan mudana halkaasaan uga gudubno heese kaleeto oo dhowr ah ayaa daawadayaal soo socda waxaa nagala socotaan telefishinka qaranka barnaamijka aad fiirsanaysaan waa barnaamijka fanka iyo suugaanta waxaana marti ku ah fanaanka cabdiqaadir maxamed aadan argute magaca naanesta maxaa lagugu bixiyay horta magaca argude argude hooya ila baxday waa gartay hooya ila baxday horay markaan soo barbaaray dhalinyaranimadeedii haddana ummadda qaar argute iska dhaa marka gute iyo gudo waaye sax waa isku horta waa ood qaadis jiiso isku gurgay laakiin in arguta socotay oo bulshadii isticmaalkeedu badatay ha sidaas weey maana wax kale ma jirin argute markaas u bedelay argude هذا هاي مكوشك تمرك وحى كوجو بحسن. هاي أيضا أفتحن هذا برامبرو جرتي مرتي هذا مرك أنا أرجو هاي هذه أنكوس الشيء كو إيجاسي يلا ذي أبو دل هاي. هالكازنو كذي نعم داي هذا مركانه هيس كلت أو حسوا قوانا إنجليزياشي دالكو وحى كجرتو حماه أنت ما يوحى هذه السنة. geesiyada dalkoodiyo geyigood u dhaartee ka gadooday xumahe u guntaday xilkooda garwaaxaystay qorige dhufays gudub u jiifay u bareeray geerida si wanaagsan eesan ereydada iskale mar cabdi faarax nuur gareen cabdi faarax samee laxankana jinni ishume muusigana yaa ku tum muusiga waxaa tumay ustaad subxaan intii heestii hore sameysay isku tagtatan hawaata marka geesiyaashii dalka la hadlaysa dhamaantood waata markaan heestan adag waa kaas baqday oo iska qabsoo qabta warkada bataga maalin meelan qabanay inta naga daysan garaanta wareegtiye geediga hore wadaan leena dhamaan xumaha dhan ay ka gadoodeen oo sida erayada ku jirto waxayna u guntadeen xilkooda waayadii hore iyo ishaag intii hore oo dawladihii bilawga markay ahayd kadib burburkii waxa soo baxday erayo oo lagu dacaadeynay ciidankeena qalabka sido iyagoo har iyo haween inay nabadda ugu ololayaan oo nabadda ay ka shaqeeyaan u baahan shacabku wacdeen kadib fanaaniintii baa kacay oo ka dhaadhicinay waxaas jirin kadib way sii socotay haddana alxamdulillah waxaad arkaysaa ciidan iyo ishaag shacabkoodii oo wada cunteenayo wada sheekeysana meel wada joogo wax walba ilaahay mahadiis maalinba marxalad baa laga soo gudbay hadda marxalad wanaagsan aynu joognaa ciidanka geesiyaasha hadda aad u qaaday markii aad u tagtid ama aad la kulantid maxay adiga isweydiisaa maxaa isweydiisaa ayaga طبعا marka dariiq aad isaga hor nimaadno qaarkood askarta inay fadhiga ka calmahan maan arkin wax dhiba صح asbaaban in waxa waaye shaqsiga qofka halka taagan qorraxda taagan ama furun jooga raba inuu dalkiisa difaacdo yuu difaacaya adna aad gurigaaga jiftid walaale si wanaagsan wuxuu difaacayaa waa adiga kan madaxda xafiiskiisa fadhiyo kan hor taagan raba inuu dhinto darbiga ka haddii aan war wanaagsan la siinin
de waad mahadsan tahay xataa meel bay gashaa si wanaagsan marka waxa shacbiyadu iyo ciidanku kalaba maarmaan shacabku ciidankiina ku xirma waa in la wada shaqeeyo hal mar hawsha la wada horumarkana laga wada shaqeeyo oo askarta bas aan lagu daayo ma ahan khata fanaan marka aad tahay fanaan marka aad tahay waa in aad wax walba xumaha ka hadashaa ma ahan inaad nin maanta koob shaaha ku shabay inta meel soo istaagto aad tiraahdo hebel saasoo ahay amaantiisa haddii oo qofka xumaha marka ay jirto wasaarad hebla xun marka ay xuntahay wasaaraddaasi xumaanteeda inaad soo tilmaamatid adoon weliba aan caynayn oo mas-uul aad u gudbin wasaaraddu dhaqankeeda qaabkeedaad ka hadlaysaa taabsiina si ay biro uga joogaan waa inaad wanaag ay sameeyaan waa inaad tiraahdo wasaarad hebla way wanaagsan tahay waxaad ku wanaagsan tahay waa taa markaana anaga iyo daawadayaasha heesta geesiyaasha dalka خذنكي إلى حي وينوهي بيو عيدنا الحي خذنكي إلى حي وينوهي بيو ذان حول وذينيو يسي خلكرو أذك يا شعب وهيليا وهاجر بحينو وهرير تاجني وهرير تاجني دام خول وذينيو يسي خلكرو أذك يا شعب وهيليا وهاجر بحينو وهرير تاجني وهرير تاجني أما أنا خليو إذا هيجانو بيرا نفتكو هرين بان لقو قد صوتينو هيبذات لخاتين هيبذات لخاتين أما أنا خليو إذا هيجانو بيرا نفتكو هرين بان لقو قد صوتينو هيبذات لخاتين هيبذات لخاتين أنت ذاك امتحانيو وروح ذاك نيجلكا استعمار بقوقيو كما بحين هديادي القنبح ولاحا دوران هيك داديو عدود قوش لقو هيلي عدود قوش لقو هيلي انت داد امتحانيو وروح داد نيجلكا استعمار بقوقيو كما بحين هديادي القنبح ولاحا دوران هيك داديو عدود قوش لقو هيلي عدود قوش لقو هيلي أركا لبدا قليميو أبقى ويدوني مركو شاليت خينكي كهابا بيلمكو إذا يحامو سيدي إذا هامو سيدي إذا يحامو سيدي إذا هامو سيدي أركا لبدا قليميو أبقى ويدوني مركو شاليت خينكي كهابا بيلمكو إذا يحامو سيدي إذا هامو سيدي إذا يحامو سيدي إذا هامو سيدي
durbaxana biljeceliyo isyadii horseedba isku ka hariyo sharafkuugu xagoogay ciidan hooyoy hubey hodiyo nasiibka hubey midhungowda mahidi hodiyo nasiibka midhungowda mahidi hodiyo nasiibka calankeena hanaadu hubey hodiyo nasiibka hubey midhungoway mahidi hodiyo nasiibka midhungoway mahidi hodiyo nasiibka durbaxana biljeceliyo isyadii horseedba isku ka hariyo sharafkuugu xagoogay ciidan hooyoy hubey hodiyo nasiibka hubey midhungowda mahidi hodiyo nasiibka midhungowda mahidi hodiyo nasiibka calankeena hanaadu hubey hodiyo nasiibka hubey midhungoway mahidi hodiyo nasiibka midhungoway mahidi hodiyo nasiibka heestan geesiyada dalka yaa iska leh eraydeeda heestan geesiyada horseed waxaa iska leh cabdi faarax gareen waa tahay laxankeeda laxankana waxaa sameeyey maxamed shariif waa tahay muusigadana yaa muusiga waa ustaad subxaaya ustaad subxaaya tumay waa tahay codkana waa adiga isma weydiinaya taas markaan gunaanadka barnaamijka aynu isla soo gaarnay iyo gabagabadii barnaamijka fanaaniintii hore kamid ah ama koox ha noqoto ama fanaan ha noqoto fanaankee ugu jecleen horta fanaaniintii hore Soomaaliyeed waaweynka ahaa dhammaantood mid aanan jeclayn ma jirinba waa gartay dhammaantood waa wada waan jeclaa in bihobby markii la yiraahdo qofku taageero u yahay markii la yiraahdo hadana anigu markaas waxaan soo qaadan jiray 3 ninba laba way dhimatay midna waa nool yahay حسن سمطر عبد القادر حسن لاري أما عبد القادر حسن حسين قف سوء يقال يحرق جعل مركا حرق جعل يو الله يرحمه فنان كلية أنا تيدا توسك وها حسن آذن وها حسن وليبا مقدشة هبين كي هول كباسكت كا أنا عرّر واحد خصوصاً كرا عن هول كباسكت كا أنا ستيس كوارتس هو عرّر ليكن أنا هذه وجينا جت حسن آذن سمطر إن أسيء سلا دربي هول كباسكت كا يوقع من استاد مقدشة واقرتي waata gunaanadkii ayaynu soo gaarnay barnaamijka daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysan guud ahaan inta ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka ifanka iyo sugaanta waxaan idinkaga tagayaa hees cusub oo Muqdisho loogu talagalay oo qaadayo Cabdiqaadir Maxamed Aadan Argute heestaas ayaan idinku macsalaameynaya inta aynu ka kulmayno toddobaadkiisa xiga waxa inoo balan ah inaga oo heeso wadani ah barnaamijka toddobaadyadaan soo socto aynu idinkugu soo gudbin doon haduu ay baraali ka noqdo مقدشاي waxaad tahay meel lagu nagaadaba xarameynka mooyee tan adduunka ugu mudan muqdishaay waxaad tahay meel lagu nagaadaba xarameynka mooyee tan adduunka ugu mudan mamadii dalkeeniyo muhuran
ويان وانا ما تدادي ماما دي دالكينيو مهورانك ويان وانا ما تدادي ومقال مدحدي لقودا مدوبيو مشوق مرنيدي علن كان لو مدو مالنتان دحجوقني مقصدهاي نفتيدي قبلقو مشغولي يوكل المالي ومقال مدحدي لقودا مدوبيو مشوق مرنيدي علن كان لو مدو مالنتان دحجوقني مقصدهاي نفتيدي قبلقو مشغولي يوكل المالي نيعاو معانيو جوي حيسك وقمرا حيبها من القدالي مقدشانك وعنتهاي نيعاو معانيو جوي حيسك وقمرا حيبها من القدالي مقدشانك وعنتهاي مقدشاي محبوذ والقايو كاموس حمانتي ومدفع يقرا عيدا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا ضيدا استيدنا ربو ميل سوقو كان صومالي مقاعيد ميد الله كوضيل وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا ضيدا استيدنا ربو ميل سوقو كان صومالي مقاعيد ميد الله كوضيل وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا مالك الرحمن ومكان لجعلي مقدشانا كرامي وخوري قسيمري وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا مالك الرحمن ومكان لجعلي مقدشانا كرامي وخوري قسيمري وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا مالك الرحمن ومكان لجعلي مقدشانا كرامي وخوري قسيمري وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا وذنل المعانت مقدشاي نبلغو قمالا